weliba intii la soo ururiyey ayaa xabad laga dhacay dhag 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 1500 ee qof ee halka meel lagu dilay 900 oo kamida hal nin ayaa sheegtay oo yiri aniga ayaa dilay 900 oo kamida oo gacantayda ayaan ku dilay muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay ayaana tusaale u ah in ninkan inta badan dadka uu dilay oo isku soo ururini waa loo soo xirxiri waa loo keeni hal meel ayuuna ku leynaya oo waliba isagoo iska qoslaya oo aanu arkin dadka naftoodu inay tahay mid culus amaba bini aadam ayuu xabada la dhacaya oo ka siinaya dhag 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 isagoo qoslaya ayuuna dhinac uga dhaqaaqaya dhacdadan waxay ka dhacday dalka Suudaan oo hadal hayntiisu ay taagneyd maalmihii la soo dhaafay insha caalamkuna ay ku soo jeedo waxyaabaha ka dhacayana ay tahay mid ka baxsan bini aadanimada inta badan falalkan argagaxa leh waxaa sameynaya ciidamada oo taageero imaaraadka ee magacooda loo soo gaabiyo RSF waana si ula kac ah ayay u sameynayaan dhacdooyinkan inta badan argagaxa badan waxay ka dhacayaan qaybo kamid ah gobolka Darfur magaalooyin ay maalmihii la soo dhaafay kooxdan ay gacanta ku dhigtay haddaba xogii ugu dambeeyay dhacdooyinka argagaxa leh halkaasi ka dhacaya caalamka oo dignina soo saaraya Soomaalida oo naftirkeeda noqotay meesha ugu hadal haynta badan amaba dadka ugu hadalay ama qowmiyadda ugu hadal haynta badan dhacdadaasi argagaxa waxyaabaha ay ka qoreen warbaahinta caalamka qaramada midoobay hay'adaha waxa weeye xuquuqul insaanka iyo sidoo kale dunida oo digniino ka soo saarayaan ayaan muuqaalkan soo qaadan doonaa bal intaana dul istaagin waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdooyinka argagaxa badan qaybo kamid ah oo aynu dhacdooyinka hadda aan ka hadlaya bal wax yar horta aynu wada daawano يا جماعة في مواطن هنا؟ فيكم مواطن؟ قولوا خير يا جماعة يا ناس والله السودان موجوع الناس بتموت بالجوع وما انا بلولو ما كان هذيك كرامة منو الليلة؟ الليلة يعني طبعا ده الاحتفال الليلة الناس دي muuqaaladan waa qaybo yaryar oo mid walba aan in yar ka soo qaaday ma aha hal meel ama hal muuqaal oo wada socday balse aniga ayaa soo qaatay oo qayb walbaba tusaale yar ayaan ka soo qaatay muuqaaladaas waxaa ku jira qayb aan soo qaadan karin balse aan qaybtii la qaadan karay ee shuruucdu ay ogolayd aan ka soo qaatay waxaa kamid ah dadka fadhiya ee aragtaan waa dad la soo qabtay oo ciidamada RSF to ay soo qabteen dadkaasi markii la soo qabtay waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah in si looga hadashinay loo lahaa maydinka waxa weeye muwaadiniin matadina Soomaha ha waa lagu khasbayaa maxaa tiin idinku kulligeena ciidan baan nahay ma ciidan baa tiin ha ordo baxay intii la dhaca xabad hadana qabarka looga bilaabaya qaybna iyagoo laga hadashinayo oo ay leeyihiin anagu waxaan taageersanahay ciidankan oo isla ciidanka gacanta ku haya ayaa xabad wadnaha lagala dhacaya dhag 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 hal qof oo ka baxsanayana ma jiro dhamaantood halkaas ayaa lagu leynayaa waxaa intaas dheer qaybta kale oo ayadana dadka geedaha intii lagu soo xiro oo labada gacmood bas la xidhaa la soo daynaya oo la soo lalminaya waana lagu maadeysanayaa oo waliba waa lagu qosqoslayaa xanuunka iyo sidoo kale la xawga uu dareemayo qofkaasi ayaa iyaga maad iyo waliba farxad u ah waa arrimaha la yaab kale ee dalka Suudaan ka dhacaya waxa intaas dheer maalmihii ugu dambeysay tirada guud qiimeynta lagu sameeyay 10,000 oo qof ayaa la dilay 1,500 oo kamid ah hal meel ayaa la dilay oo meydkooda hal goob ayaa loogu tagay meydadka ayaa goobaha iyada daadsan iyada oo hay'adaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay iyo dunidaba fajac iyo la yaab ay ku noqotay dhacdooyinkan argagaxa leh ee ka dhacaya dalka Suudaan 1,500 ee hal meel la dhigay meydkooda 900 oo kamid ah hal nin ayaa qirtay waana ninka muuqaalkiisa qaybta ugu dambaysa ku jira ee markaasi ragga fadhiya ay qaybka ama watayba
guutadaas waa guutada ugu laynta badan muuqaalada lasoo dhigay baraha bulshada waxaana hogaaminahayay dhagarqabe mujrim lagu magacaabo abululu baraha bulshada ayuu qabsaday ninka magaciisu Soomaalidu aad ayay u hadalhayaan oo waxay ka mid yihiin qowmiyadaha ama wadanka ugu hadalhaynta badan ee ninkan soo bandhigay dhagartiisa iyo sidoo kale dhibaatada uu u geysanaya dadka shacabka ee dadka reer Suudaan abululu afkiisa ayuu ka qirtay isagoo waliba ku faraxsan oo kooxdiisa dhex fadhiya ayaa wuxuu yiri dadka weylay waa la laayay ee meelaha la wadwado 900 oo kamid ah gacantayda ku dilay oo amarkiisa ma aha waxa lagu dilay ee waa gacantiisa iyo qoriga uu wato ayaa 900 oo qof oo kamid ah lagu dilay dadkaasi maalmaha gudaheeda 10,000 kor u dhaafaya xaaladda ka socota dalka Suudaan waa mid aad iyo aad u argagax badan oo indhaha caalamka soo jiitay hay'adda qaramada midoobay waxay sheegtay in 30 milyan dad ka badan ay xaalad halis wajahayaan waa dadka reer Suudaan waxayna tilmaantay in cunto la'aan ay jirto hooy la'aan ay jirto daawo la'aan biyo la'aan iyo waliba xabadii oo aan ka harin oo ka daba dhacaysa dhacdooyinka ugu waaweyn ee hadda ugu adag ee la dawaan galiyay ee indhaha caalamka soo jiitay ee argagaxa badan waxaa ka mid ah goobo ama degmooyin ka tirsan gobolka Darfur maalmo ka hor ayay kooxda RS waxay gacanta ku dhigeen degmada ama magaalada al-Fasher oo markaasi ah magaalo weyn oo istiraatiiji ah ciidamada militariga ayaa halkaasi ka baxay kadibna waxaa soo galay ciidankan RSF ee Imaaraadka uu maalgeliyo kadibna waxaa halka ka bilowday xasuuq iyo sidoo kale tacaddi kufsi iyo dhibaatooyin ay kula kaceen dadka shacabka dilka kaliya ma aha kufsiga ayaa sidoo kale iyadoo tirabdeela ciidanka waxay arkaan waa waxay dilaan waxay kufsadaan waxay dhacaan waxay sirc u dilaan oo markaas ay geedaha ka soo lalbiyaan tacaddigu waa istabajoog meydadku meel walba oo la maro oo dadka shacabka ay mareen waa daadsan yahay kama aysan harin shacabku markii ay qaxeen dabagal ayay ku sameeyeen oo gaadiidka dagaalka ayay ka daba qaateen iyadoo soo qabanaya dadkaasi intay soo ururiyaan sidii xaabo ay meel iskugu keenaan ayay rasaasta la dhacayaan xaaladda dalka Suudaan lama saadaalin karo afna laguma soo koobi karo dhibaatada halkaasi ka taagan waa dhibaato ka daranba ama u eg midda ay yuhuuddu ku haysay marinka Gaza kaliya waxay ku kala duwan yihiin dhanka duqeynta diyaaradaha oo ciidankan RSF inta badan waxay adeegsanayaan qoryaha waaweyn iyo sidoo kale kuwa gacmaha markaasi laga rido ma haystaan micnaha waxa weey diyaaradaha droonka iyo sidoo kale miigaga Israa'iil ay ku xasuuqaysay dadka reer Falastiin kuwan gacmahooda ayay kaga cilbixeen oo ay ku baabiyeen dadka shacabka ahaa isu soo duuduub tirada guud ee la dawaan galiyay ee ciidankan RSF ama kooxdan falaagada ee Imaaraadku maalgeliya ay dileen waxay kor u dhaafaysaa 12,000 oo qof 12,000 ilaa 13,000 ayaa lagu qiyaasayaa welina dilku waa sii socda oo ciidanku waxay sii